waxaad ku soo dhawaataan qisooyin qiimo badan quraanka idinkaga soo xulay oo si toos ah kala soconaysaan channelkan Shukri Online Official. waxaan idin soo gudbinayaa walaalkiin Shukri. qiso ku socoto ruux kasta oo shaqadoon ah iyo ruux kasta oo guurdoon ah. nabillaahi muuse calayhi salaatu wasalaam markii masar laga soo saaray uu u cararay ardal madyan wuxuu ka kordhacay ceelkii madyan. markaasuu ceelka dushiisa wuxuu ka helay laba gabdhood oo ereyga celinayaan oonan waraabinaynin. markaas ayuu ku yiri maxaa idinku dhacay? markaas ayaa waxay ugu jawaabeen aabahayn ereyga ma waraabinayno ilaa eryaalaha ay ka dareeraan ilaa maxaa yeelay aabahayn ayaa ah waayeel oo haddii ereyga naga dhuumo oo shiimada naga galo cid noo soo raadinaysa ma lahan. markaasuu nabillaahi muuse calayhi salaatu wasalaam uu u waraabiyey ereyga. gabdhihii ereyga ayay fuliyeen. markaasaa cidda waxay tageen in waqtiga ay tagi jireen waqti kasii hore ayay tageen. markaas ayuu aabahood ku yiri maanta maxaa yeelay waqti dambe ayaad imaadi jirteen maanta waad soo dhaqsateen maxaa? markaas ayaa waxay ku yiraahdeen nin xoog badan ayaa noo waraabiyey ereyga. markaasuu labada gabdhood mid ka mid ayuu aabba soo diray. markaasuu ku yiri kac u soo yeer ninkii. ayada oo si xishood leh u socoto sida quraanka noo tilmaamaya ayaa waxay ugu imaaday nabillaahi muuse calayhi salaatu wasalaam asagoo geed harsanaya. markaas ayaa uu raacay nabillaahi muuse calayhi salaatu wasalaam. markuu cidda tagay ayuu nabillaahi muuse uu qisooday wixii ku dhacay iyo sidii looga soo fiijiyey dhulkiisii ayuu ugu warramay labadii gabdhood aabahood oo la sheegay inuu yahay nabillaahi shucayb calayhi salaatu wasalaam. markii uu qisooday oo ugu sheegay arrintii ugu sheekeeyey ayuu nabillaahi shucayb calayhi salaatu wasalaam wuxuu nabillaahi muuse ku yiri hamurgoon qoomkaada daalimiinta ah waad ka soo badbaaday. kadib labadii gabdhood mid ka mid ah ayaa waxay tiri aabba maad noo shaqaalaysiisid ninkan maadaama uu yahay ruux xoog leh ammaanana qaadi karo yacni ruux aamin ah. aabba ayaa wuxuu yiri waan kuga nikaaxay labadii gabdhood mid ka mid ah. labada gabdhood midkood ayaan kuga nikaaxay si aad igugu shaqaysid 8 sano. haddii aad 2 sano igugu darto 10 iyo kaamishadna waa khayr. nabillaahi muuse calayhi salaatu wasalaam wuu ka qaaday ballantii. guurkiina wuu helay, shaqadiina wuu helay. marka walaalayaal haddaad tahay guurdoon iyo haddaad tahay shaqadoon dadka waayeelaha xushmay, dadka kaa waaweyn xushmad sii. ilaahay subxaanahu wa tacaalana waxaan kaaga baryaa uu kaa ajirsiiyo oo wax alla waxaad doonayso hortaada ka heshid. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.